geeska Afrika waxaan markii hore weydiiyay wax loo fasiran karo heshiiska iyo isku dhafka ciidamada maanta halka lagu sameeyay waxa loo fasiran karaa arrimahan waxay hadda ka hor ka dhaceen wadanka Liibiya wadanka ka dhacay wadanka Ciraaq in maleeshiyooyinka Shiicada ah ama maleeshiyooyinka dawladda mataqaanaa burburiyay Liibiya inay noqdaan ciidamo military marka waxa loo filan karaa in dawladdu ay raadinayso taageero ciidan oo ah inay bal wixii ka hor yimaada ama al-shabaab ha noqdaan siyaasiyiin in deegaanka uu isticmaasho siyaasadda ah qayb oo xukun taas loo fasiri karaa sidee ku noqonaysaa marka qayb oo xukun mar haddii ciidamadii ay leeyihiin dawladdii baan taageerin heshiis qaran oo constitution ku qoraya ciidamada adduunka waxay maraan process ah qofku waxa la baray ciidanka waa ciidan firqo diimeed ah caqiiday aaminsan yihiin deegaankoodii bay joogaan waa gaarishada lagu shubtay ideology ku midoobay in mataqaanaa dawladda nabad iyo nolol ee hesho taageero ciidan marka koox kasta ama deegaan kasta oo ay taageero ka helayso waxay leedahay dawladda hoos timaado maaha markii ugu horeysay baydhabo ay joogaan ciidamada dawladda taageersan Kismaayo ay joogaan Jowhar bay joogaan marka constitution ahaan maaha sharci maaha in ciidamada dawladda ku soo biiraan ilaa uu sharciga ciidanka dastuurka ee maraa sidoo kale ay ahlu sunna ciidamada ugu biireen kuwa dawladda Soomaaliya ilaa haatanna may muuqato in ay si toos u dhaxgaleen amaba ay hubkii intay wareejiyeen magaciina halka uu ku baabay marka haatan maxay isbedelay marka waxa isbedelaya ma garan karno xilligan la joogo dawladda beesha caalamku taageerto madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Khayre waxay raadinayaan nooc kasta oo heshiiskii London lagu soo galay 2017 ahaa in ciidan la sameeyo National Army inay u bedelaan ciidan iyaga taageersan marka ciidanka asuna jamaa waxay ka dagaalameen Eelbuur bay ka dagaalameen al-shabaab meel badan kula dagaalameen waa ciidan aaminsan fikirka mataqaanaa shiikhooda Sheekh Maxamuud marka waxaan u maleynayaa in dawladdu hadda taageero raadinaysa ah doorashooyinka soo dhawaaday heshiiskii ciidanka waa lagu guuleysan waayay heshiiskii doorashada waa lagu guuleysan waayay heshiiskii qaranka waa lagu guuleysan waayay marka arrintan waxaan fiirinaynaa bal sida ay mataqaan uga faa'iideystaan xoogga ku soo biiray bal iyo tababarka ay siiyaan dad baa waxay ku doodayaan in madaxda ahlu sunna lafaantooda ciidamadan ay yihiin qaab ay ku gorgortamaan oo ay kula gorgortamaan madaxda dawladda dhexe dal markuu dagaal ka dhaco qodobadaas way jirtaa waxaan Afghanistan ka Malaysia ciidamada Malaysia waa ciidamo koox qabiil aaminsan ideology aaminsan xisbi aaminsan dariiqad diimeed aaminsan marka iyagu waxay la mid yihiin iyagu dhinaca Soomaalidu hoos suufiin baan ka wadanahay anagu Shaafici شيخيد علماء وحكومة عاصمة الصومالي هذا طريقة لقاها أساسي إلا 8 سنة سنة والجماعة قبل هذا بالجدود جارهان جرعال يدوس مرهب وأنما نسكو حرام والطريقة وحين أمسين سكر يكون بدادي كران يكون بدادن إثيوبيان كإنتجريشن لسميين مع مولد حد شيخ لسميين ويشري شيخ أحمد لسميين عمر عبد الرشيد لسميين مركا يجوا مربوا عيارة يعني مربوا تشرول مربوا كلر بيسوي كيسينيا مركا هذا واحد الدنيا إني كفى إلى يستان أقال حماسي صبر بيرهبان شدال بيرهبان العق بيرهبان مركا كفى إلى سنة ما دام عيدا كل هي إن منطقة دخل هيران ما أنت لقى بالله مركا عدود أهل السنة مجري دونتا ويجري دونتا مرنا كمان تجيان مبدأ ده على السنة مرنا كمان تجيان شيخ ده كمان تجيان ديجري ده كمان تجيان إنما كان برينسبل بلي وين ديكريان ما هي سام مركب برينسبل كمان تجيان أهل السنة وأرور ديميا الشباب وأرور ديمات maxaa hortaagan marka in sida ahlu sunna loo hadlayo al-shabaab loo hadlo al-shabaab waxa ku jira ciidamo waxa ku jira niman leaders ah oo shisheeye ah waxa ku jira niman reer Kenya niman reer British ah Soomaali qurba joog ah waa fikir caalami ah dagaal caalami ah oo loo arko in dib loo soo celiyo xukunkii islaamka ahaa ee 100 sano ka hor lumay marka iyaga ideology way ka fogtahay asuna wal jamaa maamulgoleed ma aaminsana qabiil ma aaminsana iyagu waxay aaminsan yihiin in deegaankaas dariiqooyinkaas ay iska soo dhaxleen inay sii hayaan marka gaar ahaan gobolkan mudug loo oran jiray waqti dheer ayay dariiqadan xoog ku haysan jirtay marka Eelbuur bay deganaan jireen Gaalkacyo deganaan jireen Abuda qoy deganaan jireen marka culmo badan baa aad ku wada aasan ilaa badweyne marka dariiqadan suufiyadna Soomaali magacyo badan baa loo